Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada mar kale iyo channelkeennii ahaa tusinta garaadka iyo barashada xikmadda iyo walaashiinii Ismahaan Khaliif Cali oo mar kale idiin sidaa wax tayo leh oo qalbada u roon, wax tayo leh oo qalbada u roon oo horumar ku gaari kartid, wax kaa bedeli karo. Maasha Allah ayaa ku leeyahay. Ballanteennuna maxay ahayd? Wanaag. Ballanteennuna maxay ahayd? Wanaag. Ballanteennuna waa wanaag iyo xumaantoo la reebaa. Maasha Allah. Waxaan kaa dalbanayaa intaa cashirka qiimaha badan hore u galin. Waxaan kaa dalbanayaa inaad subscribe dhahdaa, like and share na dhahdaa. Maasha Allah. Kusoo dhawow walaalkay qaali iyo walaashay qaali. Waxaan ku leeyahay waxaan Ilaahay weydiisanayaa cashirkan oo ah mid aad iyo aad u qiimo badan dadka bini'aadanka oo dhan qof kasta uu soo gaaro oo saameyn karo. Waxaan Ilaahay weydiisanayaa inuu carabkayga waafajiyo waxa qeyrka xaqa ah, wax xun iyo wax marin habaabinna afkayga uu soo marsiinin. Ilaahay ayaan ka weydiisanayaa waxa wanaagsan inuu carabkayga soo marsiiyaa, qeyrka iyo xaqana carabkayga soo marsiiya, waxa xunna Ilaahay ayaan ka magan galayaa. Maasha Allah. Idinkana sidaas oo kale ayaan idin leeyahay. Maasha Allah. Cashirkan waxaa la yiraahdaa waxaad raadinaysay ma heshay. Waxaad raadinaysay ma heshay. Waxa aad raadinaysid ma heli doontaa. Okay, waxa raadinaysay haddaadan helin xataa waxaan ku leeyahay waxa raadinaysid ma heli doontaa. Laga yaabo cajalkan inuu wax kaa bedelo. Maasha Allah. Wixii dhacayba wuu dhacay. waxaad tahay shaqsi jira oo madax banaan, nooc walba u soo dhalatay, adduunyada meel walba ka timid, sidaa lagu soo koriyay, wixii kugu soo dhacay wax walbaba ka dhaqan ku leeyahay. Ka dhaqo oo ka meero, ka qabayso, musqusha tag, biyo qaado, ka qabayso. Dadkii wax ku gaarsiiyay cafi si aan nafsadaada u hesho. Waxa raadinaysa meesha markaan ku leeyahay inaa waxa raadinaysa nolosha heshida rabaa. waxa aad raadinaysid noloshana markaa heshid waa nafsadaada oo hanatay. Subhanallah. Adduunka waxa ugu weyn ee ugu qaalisan oo ruux bini'aadan helaa waa nafsadiisa u hantaa. Qofku nafsadiisa maamuli karaa. Maasha Allah. Cashirkan waxaa leeyahay anigu igu socdaa, idinku socdaa, waa dhiirigelin shaqsi kasta oo Soomaali ah uu soo gaarana waxaan rajeynayaa hadduu wuxuu raadinaya helay. Maasha Allah. Allah kuu barakeeyo. hadda kadib weli raadis ku jirtine hadda inaa is heshidaan rajeynayaa. Okay. Maasha Allah. waxaan ku leeyahay sidee isku helaysaa? qofka bini'aadanka siduu nafsadiisa ku xajiya uu isku helaa. walaal qaaliyo, oday iyo islaamba, rag iyo dumarba, wiil iyo gabarba, waxaan ku leeyahay dhalinyaro iyo waayeelba, qof kasta ay soo gaartaa. qofka ugu nasiibka badan, qof kasta qof uu ka nasiib badan yahay. intaa kasii yar tahayba haddaa is heshid, nafsadaada heshid, nasiibaa leedahay. Ma fahanti? marka bal is hel oo raadi. waxaa raadinaysa waxaan nagu dhacay, waxbaan raadinaynaa mana helayno. waxa ugu wacan waxaa raadinaynaa horumar, waxaa raadinaysaa guur haddaad, waxaa raadinaysaa adduunyo, waxaa raadinaysaa wax un waxeerka ahaato. waxaas oo dhan waxba ha raadin ilaa adiga is heshid. waxa ugu weyna raadinaysa waa nafsadaada waayo waxa aad la'dahay. waxba kaama maqno, wax walba ku garab yaalaa, wuuna imaan doonaa ama ma imaan doono, waxay ku turan tahay male. laakiin maxaa ka weyn? nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri qofka muslimka waxa ugu weyn oo nafsadiisa waa inuu aljihaadu nafs akow. adduunyo kale iyo wax kale wax aan qaban karna male. aljihaadu nafs. nafsadaada hananaysaa. maxaa nafsadaada ku hananaysaa? nafsadaada gacanta ku dhigaysaa. gacanta saas ugu dhigaysaa. dhab baa siinaysaa. saas u qabanaysaa. gacantaas ku qabanaysaa nafsadaada. haddaa gabar yar tahay oo weli isqaban oo hadda isqabatid nasiibaa leedahay. haddaa wiil nin weyn tahay ama qof dumar weyn ama waayeel tahay weli isqabanna weli waa isqaban kartaa. walaal waa dayacan tahay.
abaay waa dayacantahay, abuu waa dayacantahay, naftaada waa dayacda, naftaada aakhiro naar tijahanaba ayaa lagu socdaa. adduunyadana hamish 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 gab saa ugu jirno bash taani aan noo imaanayso. walaal waanada markasta idin waaninaya, ha u malaynay inaa anigana 100% ahay. waan raadinayay, waan isla helaynaa. wax adag waaye, haddana waa wax fudud. adagtaa nafsadaada inaa qabatid, haddana way fududaa. maxaa yeelay waa niyeysanaynaa. markaan niyeysano oon dadaalno oo indhaha furno, wac kasii indhaha wac kasii wide open ka dhig, indhaha saas u fur, shantaas cad camal indhaha ka dhig. marka indhaha furaysidna ma aha dadka waxooda inaad fiirinaysid oo iimaan la'dahay oo aqli lahayn oo akhlaaq lahayn ma aha. indhaha furaysaa adaa isfiirinaysid. aniga ismahaane asku noqonayo, qalin iyo buuga qaadanaya, naa ismahaan khaliifay adigu maxaa tahay? cimrigaag inta tag hadda maxaa iska qaban kartaa? wixii hor tagi waa dul maraysaa, intaas waa dul maraysaa, dulmara ku samaysanaysaa. wuu tagi bal hadda maanta waa maanta, berine nolosha adduunyada intee ka taagnaan doonaa? haddaa dhintay waa dhintay, maxaas ilaahay la hortagi doonaa? walaal kusoo dhawow channelkayna ahaa dhiirigelinta iyo walaasha ismahaan khaliif ee la magac baxay toosinta garaadka iyo barashada xikmada. waxaana ku leeyahay walaal xigtaga wuu tegay, maanta taaganahay miisaan, maanta isa saarno, maanta is qabanaynaa, miisaana isa saaraynaa. imise ayaa xumaan korkayga ku jiro, imise ayaa wanaag korkayga ku jiro. xaggee u bataa? ma wanaagaa u bataa? ma xumaantaa u bataa? dheeftuse xaggee jirtaa? hadda ma adduunyadan dhalanteedka ah ayaan ku dhayaltannaa oo ku dhibaatoonaa oo ku silcinaa oo miraha colaadaan abuuranaa oo ciribta xun oo waxa naga farcama ku xumaanayo, mise miraha nabada? maanta waaye, adigay kugu socotaa, anigay igu socotaa. waxaana ku balamaynaa maanta. halkaan balan ayaanu ku galaynaa aniga iyo idinkaba. waxaana rajaynaynaa waxa wanaagsan inuu ilaahay noo hirgeliyaa. waxaan ku balamaynaa maanta wixii ka dambeeya qof kastaba oo muslim ah oo cajalkan soo gaaro inuu guul gaaro adduun iyo aakhira hadduu rabo, waa in uu nafsadiisa gacanta ku qabtaa siduu ugu qabanaya. qalin iyo buugaa soo qaadanaysaa, adiga is qoraysid, qoraala iska samaynaysaa, qaladyadaada qoraysaa, wanaagaaga qoraysaa, waxa xun waa iska tirtiraysaa, waxa wanaagsana ku qoranaysaa, waa isa soo dhisaysaa. qalbadaada ayaa dahaarinaysaa. qofki aad fahmi weysid, hataa fahmi weynin, qof aadan fahmi weysid waa iska daynaysaa, nabadgelyaa siinaysaa adoo colaad u qaadaynin. colaada iyo cadowtinimada iyo xiqdiga iyo xumaanta iyo xasidnimada iyo kala goyska iyo dad dhibaataynta iyo balaayada dadka loo rajeeya ayaan ka tagaynaa. maasha allah, qofkii halaas helo wuu guulaysto, qofkii halaas helo wuu guulaysto, qofkii halaas helo wuu guulaysto. maasha allah, allah ku ziyaadiyo, qofkii heesta allah u ziyaadiyo. wax weyn waay maasha allah. waa waxyaabaha jannada lagu galo, waxyaabaha ugu waaweyn waa qalbada oo la dahaariyaa. qalbadaada markaad dahaarisid, adiga waxaa iska fiirinaysaa qof isla socdo inaad noqotid. maaha qof iska socdo inaad noqotid, qof iska socdo aan iska warhaynin, asaga isla socon ya oo asaga nafsadiisa dhan la socon. ha noqon, isla soco. intaadan akhbaarta la socon, adduunka waxa ka dhacaya la socon, oo dariska la socon, oo qaraabada la socon, adiga isla soco. oo hanti nafsadaada intaadan hanti yeelan. maxaa yeelay haddaa hanti yeelatid oo nafsadaada hanan, hantidiiba waa weynaysaa, ma garanaysa meelay ka baxda hadhowti. walaal hanti ishano nafsadaada oo naftaada hanti intaadan hanti yeelan. naftaada xaji intaadan qof kala xajisan. waxna ma xajisan kartid ilaa nafsadaada xajisan. haddaa u haysatid adoo nafsadaada toosneen inaad dad xajin kartid, waxba ma xajin kartid. 2 beri qayaaliya ku noolaanaysaa, hadhowtana runtaa kugu soo baxayso. isxajiso, isxifdi. intaadan dadka kugu dhow aad jeceshahay aadan xifdin, kow nafsadaada xifdi. maxaa yeelay haddaa adiga fasahaad iyo wax walbo xun iyo dulli iyo darxumo iyo dhibaato iyo qooto adiga noloshaada tahay iyo dadka oo la dulmiyaa, maxaa xifdin kartaa?
walaal macna la'aanta ka tag inta aadan dadka aadan wax wanaagsan aadan u sheegin adiga waxa ilmahaaga intaadan wax wanaagsan u sheegin adiga ka bax waxa macna la'aanta ah ilmaheena hadda maanta ma dhigi karno taleefanka iska daa maxaa yeelay anaga dhanaan ku wada dhegano waa fashilanahay ما شاء الله قفك نصيب لا إله أسيبسيو ولا ليال قفك نصيب لا إله أسيبسيو وحن إله كرجلينا وحوناكسن إنه إلهنا أسيبسيو وحنا حسبنا الله وحنا حسبنا الله وحنا حسبنا الله إله يا مجنجلينا إلهي ويدي ستة عفيس وحنا كد ذا شادتك إنا عفيسين محايا لكان دتك عفنين ما إلهي معفينا إلهكم عفين دونا دادان دادك عفينين مركا قلبدادي دهارسيد oo ilaahay hortiisa tagtid oo qof nafsadiisa hantiye noqotid oo jihaadu nafsi kusoo guuleysatid waxaa gaaraysaa horumar iyo guul adduun ilibaan aqro masha Allah hana nafsadaada oo horumari oo daryaal nafsadaada kadibna dadka kala daryaal doontaa walaal iyo aboowe ama abaayo walaalkay qaaliga iyo walaashii qaaliga hoo waxaan ku leeyahay si aguul adduun iyo liibaan aakhiro u gaartid waa in aan nafsadaada hantisaa marka waxaan ku leeyahay dardaarankayga waa in xaqa la isku dardaarmaa oo wanaagga la isfaraa wixii xunna laga tagaa maasha Allah waxaa walaashiin ismahaan khaliif halkan idinkaga soo gudbisay intaas yar nafsadaada markaa hanatid ya ayaa adigana aguul gaari kartaa waa ila garateena u maleynayaa walaal waxaa balanteenu tahay wanaag waxay balanteenu tahay wanaag iyo xumaanta oo la reebaa waxaana kaa dalbanayaa in subscribe dhahdaa like and share na dhahdaa masha Allah kusoo dhawow waan ku leeyahay channelkeeni toosinta garaadkii barashada xikmadda iyo kulan kale halaas ayaa idinkugu ekeeyay xikmaddaas yarta ah walaalayaal بلانتين وناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.